magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacay oo lagu soo gabagabay heshiis rasmi ah oo dhexmaray laba beelood oo walaalo ah oo dhawaan ku dagaalamay Buuhoodle. waxaa heshiiskan ka soo qayb galay nabadeynta ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ergooyin nabadeyn ayagu soo gaaray Buuhoodle. waxaana shirkan lagu furay aayadaha Quraanka Kariimka inta kadibna waxaa halkaas si rasmi ah uga wada hadlay labada inta kadibna waxaa halkaa ka hadlay cuqaasha labada beelood ugu horeeyo Caaqil Cabdisamad Cali Xasan iyo Caaqil Cali Cabdi Cali Dahable waxayna soo jeediyeen qodobadii labada beelood ay ku heshiiyeen. Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ah cilmawdiinka Weyn ee Somaliland ayaa halkaa ka hadlay soo dhaw heshiiskan. sidoo kale isnaalka waxaa ka hadlay Colaadii Cabdisalaan Xasan Maxamed Boqor Cabdullaahi Axmed Cali Colaadii Salabaan Buraale Aadan Colaadii Jaamac Colaadii Ismaaciil Ducaale iyo Cuqaale iyo waxgarad aad fara badan. waxaan ku heshiinay أحمد جراد نكينين أحمد جراد دلا إنه أساسي كاس محكمة دينك كلكم يسا عدي دي أولياء دم كهذا الجوار يتنيا إيه خيار كمرك على إن الدلان إن يسيد داريان ديك قاتان إن اللي كعفيان كله كويشيني أو قدر كلا بعضها دعدي وحنو كجيشيني نيكي قاتل كاها إلى صاقرتي إلى سيداي وحنو كحكمني أنتم هذا الجراح قلب كلامات يعني كاوية وحوية إيانا أنكي مدة لقلها أحمد جراد مدة كلها مدة دي يروى دمان يكذب تكلس مية دي وين دعدي أنك أنا السنة waxaan ka xukunay 40 halaado ganaax gudbaya shaqaalaha waxa ku dhintay 10 qof oo uu ku jiro ninkii ugu horeeyay ee dilku ka bilaabmay waxaan kaga heshiinay in kun dollar oo duuga laga bixiyo waxa ku dhaawacay shaqaalahaas 30 qof oo dhaawac ka gedisan yahay waxaan isla qaadanay iyadana in beeshu dhaawaciso dadka soddonka dadka aan la reer midna ahayn ee waxyeelada ay ku gaadhay dhibaatada shaqaalaha hadda halkan ka dhacday ilaa iyaga annaga ay noo dhex yihiin baan ku heshiinay aba wuxuu sheegay shaqaaluhu ka dhacday Somaliland iyo Puntland oo ay ku dagaalameen Buuhoodle waxaan leenahay marka hore arrinta waxba kama jiraan shaqaaluhu waxay ka dhex dhacday dadka ka wada hadlay wixii dhex maray ee ka heshiiyay ee magacooda iyo tilmaantooda aad aragtaan ka xiraamsan shariicada oo tiraadeen qayb kamid ah ninkii wax dilaa sharciga la hor keenaya ilaahay inuu ku joojiyo dhigta moodada bariga oo qaadashada ka sheegteen ee sharciga oo baa ku qaadateen wax gaarka gudoomiyay waxa dhici karta inay noqoto ilaahay inuu akhristay wanaagiina iyo qalbigiina wacan oo hadda bawaayid cid waa hawsha halka ka dhacday quruxda badan loo sameeyay dawagal bay u baahan tahay dadkii wax gaareen si gaar ah looga u baahan tahay waxaan dareemayaa waxa la yiri sida xukunku u dhacay beeluhu waa in la dhaahiyaa baa la yiri dadkii wax gaareen barakeeyo labadiina beeloodba waxaa marka kala doorashada wanaagsan dad badan baa wax ka xeeran yihiin dad badanna hawlo badan oo hadda dhex mara waa dhamaysteen qolada wax ka xeeran yihiin allaha iyo farax cali iyo sabakaad cali iyaga waxaan leenahay arrintaas oo kale gaarta jirto ma ay jirto markaa laascaab ka soo baxay shir weyn baan fadhinay habeenkiina mikrofon inta la qaato laascaab lagu reebaa gurigeyga la isugu yimid nimbar weer buu ka tuuray waxay ahayd war naga daayay meeshaas inkaar baa ka dhacday oo toban meel ku dhimatay waa xaajadaas u dhamaanay naga daayay rag xaajada yaqaanay oo reerkan aad u yaqaanay waxay yiraahdeen haddii ku gaarno beero nasiib leena reerka hadda dhaqaano si dib yarna waa ku dilaya si gobolilaha waxa xaja qaadanay wada tii waa soo baxay lugaana sida uu sheegay cadalkii ugu horeeyay cadalaha kala siinaha u baahanta
سيمينار وين بيوباهن damayntiina gudoomiyaha guddida nabadeynta Khadar Cali Jaamac ayaa shahaado sharaf waxa uu gudoonsiyay beesha Axmed Garaad oo sheegay inay nabad qaateen muddo dhan ku dhan 24 saacadood kuna soo dhameeyeen khilaafkii iyo colaadii u dhaxaysay ismada ayaa lagu dheer ku maray magaalada Buuhoodle iyagoo ku dhawaaqay colaadii Buuhoodle waa la soo afjaray waxaana maanta Buuhoodle u ekeyd maalin nabadeed iyadoo labada beelood walaalaha halka ay ku heshiyeen waa Cali Cismaan Ismaaciil Dhagjar wararka telefishinka caalamiga ee Somaliland magaalada Buuhoodle